haddii ay tahay markii kuugu horreysay ee aadna soo booqato hanaga ilaawin inaad tiraahdo subscribe channelkan kadibna furata calaamadda gambaleelka si aad ula socoto wax walba aan soo gelina channelkan. kani waxa uu ahaa fashilkii ugu weynaa ee soo martay nolosheeda. sumiskii ugu horreeyay ee aan sameeyey aabbahay ayaa igu qabtay. kadibna maxaa dhacay? xidigtii hore ee caanka ku ahayd aflaanta anshaxumada ee Sunny Leon, taasoo haatan iska dhaaftay shaqadaas islamarkaana ah atiriisho ka xamaalatay Bollywoodka, ayaa waxay dib u xusuusatay markii ugu horreysay oo ay sumisay wiil uu xiriir jacayl kala dhexeeyey. 36 sano jirtan Sunny Leon oo lagu naanayso Bollywood Baby Doll ayaa daaha ka qaaday in bilowgii nolosheeda ahayd gabar aad u jecel in ay la baashaasho asxaabteeda, balse maalin maalmaha ka mid ah ayuu fashil ballaaran ku dhacay markii uu aabbaheed ku qabtay iyadoo suminayso saaxiibkeed. waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay sumisay saaxiibkeed. waraysi ay siisay kanaalka mareegaha YouTube-ka ee journalista Hani, Sunny Leon ayaa looga soo xigtay wuxuu ahaa wiilkii ugu horreeyay ee aan jacayl la sameeyey, kaasoo aan isla dhiganaynay dugsiga sare. waxaan xusuustaa inaan daawanayay filimkii Romy. wuxuu ahaa wiil aad u qurux badan, lugaha iyo gacmaha waan isdhaafsannay, si dareen leh ayaana isku suminnay. halka la joogayna waxay ahayd gurigayga, balse aabbahay ayaa soo galay guriga innagoo aan ka warhaynin. wuxuu arkay wax walba oo ka dhacayay goobta. kuma uusan faraxsanayn markii aan arkay aabbe oo i hor taagan. waan naxay, balse jawaabtii uu i siiyey mid ficil ah ayay ahayd, sababtoo ah qoyska Sunny Leon ayaa ka guuray gobolkii ay degnaayeen, waxayna degeen gobolka California ee dalka Maraykanka. waxaana u sabab ahaa sumiskaas ayay tiri Sunny Leon. Sunny Leon xilligan waa mid ka mid ah atiriishooyinka magaca ku leh maqaamka sarena ka jooga Bollywoodka, balse waayihii hore ayaa gabadhan waxay ahayd gabar samaysa filimada anshaxumada ah, waxayna kala kulmi jirtay bulshada reer Hindiya sumcad xumo iyo weliba aflagaadi joogto ah. balse maanta isbeddel dhab ah ayay la timaaday, waana meesha ay joogto mid gaarsiiyey. waad ku mahadsan tahay daawashada warbixintan.